Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta magacaygu waa Dr. Yacquub Xasan muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee loo noqdaa muslim wax soo saar leh sideedaba marka aynu ka hadlayno wax soo saarkeena wuxuu ka yimaadaa saddex meelood oo kala duwan wax soo saarka jirka wax soo saarka ruuxda wax soo saarka bulshada mid ayaan u fiirin doonaa haddii rabbi qadaro insha allahu tacaala haddii aynu ku bilowno wax soo saarka jirkeenu inuu noqdo mid tamar leh oo wax soo saar leh jirkeenu wuxuu u baahan yahay cunto fiican oo caafimaad qabta oo ka kooban qaybaha carbohydrate protein vitamins minerals ama cusbo oo aad iska daysid cuntooyinka aanan caafimaadkaaga u wanaagsanayn sida junk foods wax loo yaqaano ama cuntooyinka sakhajaanka ah oo shiilan oo uu faadka ku badan yahay uma baahnid waxaad u baahan tahay oo kaliya cuntooyinka dhulka ka soo baxa sida fruitska oo kale midda labaad hurdo caafimaad leh oo aad seexato waqti kugu filan si jirkaaga u helo firfircooni iyo deganaan xitaa waajib ma ahan inaad si xiriira u seexato 8 saacadood ama 7 saacadood haddii aadan jaanis u helaynin waxaad qaadan kartaa naps yaryar ayaad qaadan kartaa sidoo kale inaad jirkaaga kala bixi oo aad samaysid exercise waayo mar walba ood gubtid energy ayaad helaysaa energy oo aadan biri u noqonin qof gabooba waqti hore oo leh energy ku filan jaabi mar walba oo aad jimicsi samaysid maskaxdaada waxay soo daynaysaa dheecaanka farxadda ee loo yaqaano dopamine taas oo kuu noqonaysa firfircooni dheeraad ah midda ku xigta ayaa waxa ay tahay maskaxdeena waa waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inaynu ka shaqeyno si wax soo saarkeeda uu u bato ama wax soo saar badan ay u yeelato waxaan aragnaa annagoo maanta oo dhan mashquulsan digitalka oo telefoonada aynu ku foorarno oo wax micno leh oo saas u weyn aynan ku mashquulsanayn oo aysan jirin maskaxdaada waa inaad ku tababartaa maalin kasta waqti kooban oo aysan ku mashquulsanayn social media si ay dib ugu soo noqoto sideedii hore ma is aragtaa adigoo maanta oo dhan ku mashquulsan shaqo ama waxbarasho markii aad guriga imaadayna aad ku nasatid teleefankaaga ama TV-ga taas oo maskaxdaada sii qasaysa hoosna u dhigaysa wax soo saarkaada waxyaabaha aad maskaxdaada mid firfircoon uga dhigi kartid waxaa ka mid ah inaad maalintaada qaybta ugu horeysa ama saacadda ugu horeysa aad wax akhrisid ama dhageysatid waxyaabaha dhiirigelinta wax soo saarka iyo hor u socodka leh midda ku xigta waa inaad emotionkaaga ama caatifadaada aad tamarteeda heshid oo waxa ay tahay waa inaad waqti u samaysid dadka aad jeceshahay sida familiga asxaabta iyo cid walba oo aad jeceshahay inaad waqti la qaadatid qodobka inoogu xiga wuxuu yahay wax soo saarka ruuxdeena muhiimad aad u weyn ayay leedahay sababtoo ah haddii aynu nahay dad muslimiin ah waa waxa kaliya ee la rabo inaynu aad ugu dadaalno sidee looga dhigaa ruuxdaada mid wax soo saar leh quraan akhris subaxdii marka ugu horeysa aad soo kacdo salaada subax kadib hawsha ugu horeyso ee aad qabanayso waa inaad ka dhigtaa inaad Allah subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa akhrisid waa inaynu quraanka wax ka akhrinaa si ruuxdeeda darajadeeda ay kor ugu kacdo oo iimaankeena u ziyaado waxaa kaloo la mid ah xuska Allah subhanahu wa ta'ala oo aad ku dadaashid maalintaada inaad wardi yeelato tala saaro Allah subhanahu wa ta'ala maalintaada marka guriga aad ka bixaysid tala saaro Allah subhanahu wa ta'ala adkaarta akhriso oo maalintaada rajo iyo hami ku bilow waxyaabaha ruuxdaada kor u qaadi karo waxaa kaloo ka mid ah inaad samir yeelatid waxyaabaha imtixaanaadka ah ee noloshaada ku soo maraya waa inaad u samirtid oo aad samir u yeelatid waa inaad samir u yeelataa waxyaabaha noloshaada soo maraya noloshaan wada imtixaanka ah nolosha oo dhan dhibaatooyinkeeda oo dhan waxayba iskaga daba imaanayaan sida mawjadaha badda oo kale ha yaraadaan ha bataan ama ha weynaadaan waxay noqon kartaa in caafimaadka lagaa galo oo aad xanuunsatid waxay noqon kartaa qofkii aad jeclayd aad weydid ama uu kaa dhinto oo uu adduunkan kugu cidleeyo waxay noqon kartaa in xoolahaaga aad weysid oo xoolahaaga ay kaa gubtaan ama aad khasaartid arrinka ugu dambeeya ee aad ruuxdaada ku dhisi kartid waxa ay tahay in aad dadka iska cafisid inaad iska cafisid kii ku xumeeya kii wax kaa sheega badanaa waxaad arkaysaa bulshada dhexdeeda laba qof oo muddo hore wax iswaxyeeleeyay oo weliba calaliyow iyo cuqdad isku qaba taa marka waxay dhibaysaa waa adiga oo qalbiga ayaad ciriiri ka dareemaysaa mar walba oo aad qofkii aragtid marka iska cafi oo cafiska badi
waana sifada ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee Allah subxaanahu wa tacaala jannada ugu bishaareeyey. Qodobka inoogu dambeeya wuxuu yahay wax soo saarka bulshada. In laga qayb qaato wax soo saarka bulshadaada wax walba oo horumar ah ay sameynayso waa inaad ka qayb qaadataa oo bulshadaada aad wax ku tarayso. haddii wadada aad maraysid aad wax ku aragtid dhagax yaalo ama qodax taalo inaad ka qaadid. qof muslim ah oo walaalka ah oo dhibaataysan haddii jeebkaaga wax ku jiro inaad u kaalmaysid. haddii uu baahan yahay in garabka aad qabatid oo haddii aad awoodid inaad wax siisid. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeena. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. haddaad ku cusub tahay halkan subscribe saar insha Allah. mahadsanid.